madrasadda quraanka kariimka lagu barto ee degmada Ceelbe ee Alfurqaan ee maamulaha uu ka yahay Cali Maxamed Ciise ayaa maanta ardayda dhigata waxaa lagu guddoonsiiyey kutub iyo weliba agab kale oo waxbarasho ay soo dirsadeen gabdho muxsiniin oo markaasi ugu talagalay in malcamadaasi ay ardayda kor ugu soo qaadaan munaasabadda ardayda lagu guddoonsiinayay maanta kutubta iyo agabka waxbarasho ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybo ka mid ah bulshada degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag sidoo kale waxaa madrasadaasi ka soo qayb galay nabadoon Maxamuud Xawar oo ka mid ah nabadoonnada deegaankan gobolka Sanaag ugu horeysna marxaladda ee malcamadaasi ay soo martay iyo weliba maanta madasha lagu guddoonsiiyey ardayda madrasadaasi Alfurqaan wax ka barata kutubta iyo agabka waxbarasho ayaa waxaa ka hadlay baraha malcamadaasi Cali Maxamed Ciise wuxuuna markaasi uu tilmaamay inay malcamadani ay tahay malcamadihii ugu horreeyey ee laga asaaso degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag isla sidoo kale hadalkiisa waxaa qaatay nabadoon Maxamuud Xawar oo munaasabadda ka soo qayb galay wuxuuna ku ammaanay macallin Cali Maxamed Ciise oo markaasi muddo dheer soo dhigay malcamadaasi maantana uu ardayda guddoonsiiyey agabkan waxbarasho iyo kutubta ee ardaydaasi loogu talagalay in markaasi tayadooda quraanka kariimka kor loogu galabta waxaynu u fadhinaa xafladii amba kulankeenii aynu ku qaybinaynay kutubtii jaamacyada ahayd iyo bawaagtii dhallinyarada yaryar ee qaybta qoraalka gacanta oo ay soo baxsadeen gabdhihii khayrka qabay oo ay soo gudbisay Xaawo Xasan gabdhaha ayaan tirinayaa lambar 1 Xaawo Xasan lambar 2 Raawi Xasan lambar 3 Faadumo Jaamac Faarax lambar 4 Misbaax Cabdi Xaashi lambar 5 Aamina Cumar lambar 6 Khadiija Ibraahim lambar 7 Farxiyo Cabdi Abubakar gabdhahaas waa gabdhaha soo bixiyey kutubta aad aragtaan oo faraha badan dhowr boqol oo kitaab gaaraysa lacagtooda iyo bawaagtan oo gabadha Xaawo Xasan la yiraahdo iyadu khaas ahaan ay tiri qaybteeda bawaagna ha laga gado kutubna ha laga gado waxaynu rajaynaynaa oo Ilaahay uga baryaynaa gabdhahaas magacyadooda aan kor ku soo sheegay dhammaantood khayrka ay la soo baxeen oo ardada madrasadda Furqaan ay ugu bixiyeen inay quraanka ka bartaan bawaagta qoraalkana qaybta yaryar ee farbarista ku jirta oo yaryarkaahi ay ku qaataan in quraanka iyo farbarashada waxaan leeyahay gabdhaha miisaanka xasanaadka Allah u saaro aamin dhahay aamin gabdhaha dhammaantood aan magacyadooda soo sheegay wixii muraada oo Ilaahay ka baryayaan inuu Allah u aqbalo aamin dhahay adduunyada inay ku liibaanaan aamin dhahay dad iyo duunyo inuu Ilaahay ku nabadgeliyo aamin dhahay aakhiro
malcaamadan alfurqaan ee ku taalla degmada ceelbe gobolka sanaag ayaa waxay ka mid tahay malcaamadihii ugu horreeyey ee laga asaaso degmadani ceelbe gobolkan sanaag. maanta xilligan haatan lagu jirana ayaa ardaydii malcaamadaasi ka aflaxday ayaa waxay wax ka baran dalka dabadiisa iyo gudihiisaba ardaydii ka baxday oo maanta ay macalimiinka yihiin. waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur, degmada ceergaabo ee gobolka sanaag.